راجعون waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii xalay ka dhacday xeebta Liida. xalay abaaro markay saacada ahayd 4 saac iyo 1 daqiiqo waxa shakhsi ka tirsan qawaariijta uu si toos ah u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisaysa xeebta Liido oo xilliga maadaama ay jimco ahayd u joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta Liido ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaa qarxa dhaxda uga galay wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii maamooyinkii buskudkii waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay dadka ganacsatada ahaa iyo dhammaan indheer garadkii iyo dhalinyaradii aqoon-yahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka jimcaha ah xeebta Liido si degan ugu damaashaadayay targetkiisna wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii indheer garadka ah sidoo kale koox ka tirsan qawaariijta ayaa ayaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu xasuuqay waxay soo aadeen si foolka foola u soo aadeen intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada waxayna soo galeen hoteelka Beach View waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyay qawaarijka intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u bagac dhigay waxayna goobta ku toogteen saddexdii qawaarij ee gudaha hoteelka gashay goobtaas kaliya 2 askari ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid ah dhaawaca uu shahiiday laakiin waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka sidoo kale waxay wadeen gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyay oo qawaarij waday balse ciidanku ay fashiliyeen markii ay ciidanku fashiliyeenna la qabtay qawaarijkii asagoo dhaawac ah oo nolosha lagu qabtay iyo gaarigii oo qarax ku xirnaa oo ay ka badbaadiyeen bulshada geesiyaasha ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka caasimadda arrintaanu waxay fariin cad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo haray ma jiro shabaab iyo qawaarij targetkoodu ma ahan shakhsi dawlad u shaqeeya askari iyo cid kasta wixii la halmaala ee maantay waxay u socdaan inay isirsafeeyaan magaca ummadda Soomaaliyeed war hooyada Liida ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta Liida maalinka jimcaha maxay galabsatay taas waxay ku cadeynaysaa in qawaarijtu aysan u soconin heykal iyo nidaam dawli ama askari aysan u soconin ay u socdaan la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan cid kasta oo dareemi karta dhibaatada xaddigaas leeg inay u istaagaan difaaca dalka iyo diinta lagana difaaco kooxan qawaarijta ay ku soo duulay inay magaca ummadda Soomaaliyeed baabi'iyaan guud ahaan waxa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah
oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobay ah waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah dhalinyar hooyo iyo dad yani birmageyda in miina inta la isku soo xiro la dhex istaago ama la target gareysto de qawaaritu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan liidan xarun ciidan ma ahayn hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin dhalinyaradaas soo aadeynay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan oo qaarkood ka soo baxay todobadii arooskooda qaar u yimid safar ka yimid maanta kaliya joogay dalka maalinka jimcaha ah inay waqti qaataan ninka inta miinada isku soo xiray target gareystay wax inoo haray ma jiro ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan wada istaagno in qawaarita dhinac looga soo wada jeesto gacan la siiyo ciidamada ammaanka sidii nimanka qawaarita loo cirib tiri lahaa qawaarij uma socoto askari uma socoto dawlad uma socoto madax waxay u socotaa cid kasta oo magaca Soomaaliyeed sheegata ma jiro shakhsi Soomaaliyeed oo maantay mactab saaran yahay oo Kristaana oo liida dhex taagan ma jirin laakiin waxna lagu beegsanayo waa diinteena suuban dhaqankeena iyo dalkeena iyo magaca Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed intii harsaneedna waxaan leeyahay maantay waxa la idin diray fariin cad oo ku socota magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qawaarita dagaalkeedii waa socda sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku baaqayna ummadda Soomaaliyeedna u kala harimayso wixii hadda ka dambeeyana insha Allah waana la cirib tiray oo waa jubbada hoose wixii ka dhacay waa aragteen inta hartay yaryarka ay u soo dhuumanaysa maatida inay isku qarxiyaan waxaan leeyahay ha laga foojignaado ummadda Soomaaliyeed meel walba isugu imaanayaan guud ahaan caasimadaha dalka inay iska ilaaliyaan shakhsi kasta oo ay ka shaqiyaan oo si xun u socda wax ku raran yihiin dhar ama boorsooyin wata oo aragtaan iska